hase ahaatee markan aynu eegno Sacdiye Axmed waxay ka mid tahay koox majaajilistayaal ah oo markaasi ka kooban 48 ruux balse riwaayadaheedu waxay ku jishaa Foosiya waana gabadha kaliya ee Soomaaliga ah kana tirsan kooxda Kenyaanka ah luqadda Ingiriiska iyo sidoo kale Sawaaxiliga ay ku jishaa riwaayadaheeda waxa warbixin ka diyaariyay Cabdishakuur Faarax Igalle oo Universal ka tirsan oo ku sugan Nairobi Cabdishakuur Sacdiye Axmed waxa ay ka mid tahay koox majaajilistayaal Kenyaan ah oo ka kooban 48 ruux balse riwaayadaha waxa ay ku jishaa magaca Foosiya waana gabadha kaliya ee Soomaaliga ah ee ka tirsan kooxda luqadaha Ingiriiska iyo Kiswahiliga ku jila riwaayadaha jilista riwaayadaha walow aysan ahayn wax sahlan haddana Sacdiye Axmed waxa ay ka mid tahay shakhsiyaadka kooxda ugu caansan waxaan wax ka weydiiyay sida ay ugu suura gashay inay ka mid noqoto kooxdani iyo caqabadaha ay la kulanto marka ay jilayso riwaayadaha aniga waxaan la Sacdiye Axmed waxaan ku jilaa Foosiya ali aqana soo waxa ii dhaliyay anoo yaraan jeclaan jiray hobbigaygu ahaan jiray inaan waxa aan sameeyo majaajilo aan sameeyo soo markaan yaray horta ma ii suurta galin marka iskuul dhigan jiro waxaan xustaa waxyaalaha ciyaaraha iskuulkan ku jiray markaan Mombasa maalin audition la sameeyay aan Facebook ka arkay sidii aan ku galay sida hor laga qaatay oo haddana aan riwaayadahan ku soo jirnaa wallahi ma sha Allah horta dib waa iska jirtaa riwaayad markii la jilaayo luqadana dhib kuma arki luqad waan bartay soo waxaan aniga kaliya Soomaali ka ah sidaas oo kale waxaan isla jirnaa adiga in waxaan ku kala baxnaaday 47 country aan ku kala baxnaa oo hal nagu soo darsano Italiya oo cadaan ah oo Italiya ka imaaday adi 48 ana sida aan ku jilaa laakiin markii riwaayada la dhigayo waxyaalo aqyaa oo dib oo kula soo kordhaba jirto markii la shoot gareynaa camal oo qorraxda aad taaganta qorrax zayd oo kula shahay oo lagu soo celcelin madaxa ku xanuunayo imara maanta inta diyaar iska dhigto oo soo dhigaysa jirta marka meesha tagtana roobku ugu soo da'ayo roobkuna noo dareeyay qorraxduna noo daran tahay soo way jirta dib fara badan walaalo kulma laakiin qofka ma aragtay inta guriga dhex fadhiyo remote intuu qaato TV iska fiirsanaya raaxo ku dhirga asaga laakiin lama ogo riwaayad qofka jilaayo walaa ciyaar ma aha waxay u baahan tahay samar dulqaad ay u baahan tahay inkastoo hadda ay noqotay shakhsi bulshooyinka Soomaaliyeed iyo Kenyaanka caan ka dhax noqday Sacdiye Axmed haddana waxa ay sheegtay inay mar walba dhiirigelin ka hesho bulshada Soomaaliyeed waqti walba oo ay la kulanto ma sha Allah dadka Soomaaliyeed horta markay arkaan way ugu farxaan horta sida markay aan maro dhinacan Gaarisa looji dhinacaas Soomaalida ka badan tahay marka maro horta dadka maantan indhashareer xirneen camal way ugu farxaan xidhan Allah Foosiimo marmar qaarkood magacayga soo qaban karina jirto dhaay nyanya Ruqiya marmar qaarkood waxa jirta iska dhaay mama Ruqiya waan istaaga nafaasan siina waan la hadlaa waan la sheekaysanaa waxay dhahay marka safely asla galna kama sabar amal waa isla galeena inta si ku farxayaan ee qofka baagta markuu farxa asagana wuxuu si hamigiisu si jeclaana riwaayada aan sameeyna wuu si fiirsanaya soo haddaan intuu ila hadlay aan ka sii istaago ka sii socdo waa laga fiican laakiin aan sida badi oo shabkeyga marka arko mashaabigayga oo dibadda socdaan Soomaaliya haato Kenyatta haato waa u istaaga waa la sheekaysta cabaar waqtiyan siiya mtoto mzuri kama cucumber nataka wewe unieleze sema merogo sema wacha mngoka hii naivunja mwizi wangu nimpate I don't care about the care Kwambia fadhali ukuja uje ushuhudie wale wa hizo mtaa kwako. Ndiye baba ndiye. Mimi mtu mzima wewe waniita mwizi hapa. Bwana mwasengenya hapa. Kana mtoto. Takuzabazaba ndo. Nyanya Rukia, nyanya biscuit. Nakudai. Wewe nyama. Usikiza wewe mwanamke wewe. Wewe Rukia. Umemtoa wapi? Mzee nani? Mtoe mkono wa kulia gesha pande hii. Sasa kujinga kwa mimi. Hebu toka kwangu. Toka haraka basa. Wewe una matata sana wewe. Urembo wote ulionao huo. Kumbe ni mwizi wako. Mtoto mzuri una mtu mjinga. Nitamtafuna mimi kilikuwa nitamtafuna mimi. Kumbe pia nao ni mwizi. Kutandika. Mimi mtu mzima wewe waniita mwizi hapa. Ona sasa. dhanka kale Maxamed Juma waxa uu ka mid yahay majaajilistayaasha Kenyaanka ah ee riwaayadaha ay wada jilaan Sacdiye Axmed
waxa uuna iiga warbixiyey sida uu dadka kaga qosliyo iyo noocyada uu jilo riwaayadaha iyo erayada uu ka yaqaano luqadda Soomaaliga ah kuwaasoo ay bartay Sacdiye Axmed. Firi, yeah, okay. Kufanya kazi na dadangu, my sister from Somali, kwanza ni kitu very unique. I've never, katika maisha yangu, I've never acted with a Somali lady. And huyu msichana ni mtu akona bidii sana. In fact, amenifunza mimi, na mimi si peke yangu. Even the other actors katika set, tumeanza kujua Kisomali. Kama neno ya mchele, nasema bris. Kama ni pesa, nasema bogol mea. Lak. Pesa ni mia ni bogol, si ndio? Kama unasema nakujala, nakupenda, nakudiga, unasema utakupiga, nakudiga. Sasa napenda sema nakudiga wallahi. Sasa we are learning, but it is hard. Somali is a bit hard, but ukipata mtu ambaye uko willing kukufunza na uko very friendly, kama dada yangu hapa, she's so friendly, anatusaidia sana. So sometimes we imitate the words ambazo tunazizungumza yeye, tunajifunza. Kwa hivyo tunajifunza mambo mengi sana. ugu dambeyn Sacdiye Axmed ayaa waxa ay sheegtay inay hadda qorsheynayso inay maalin oo riwaayad la jisho Cabdi Muriidi Dheere Ajakis oo kamid ah majaajiliistayaasha caanka ka ah geyiga Soomaaliyeed. Wallahi ana bi sheegin horta qof Soomaali oo riwaayad jilo wali lama kulmin waxaan arkaa oo dad iska caado dhahay Fawziya aniga sidaad oo kala rabnaa inaan sameynaa rabnaa isaan ku sameynaa u dhiirigeli way jirtaa laakiin qof maanta riwaayad sameeyo oo Soomaali ah oo face to face aan wada kulunay ma jirto waan ku dhiirigelinayaa hada arki lahay because qof dumarka uu jilay u yahay oo idoo Fawziya sidaad oo kala rabaa East Africa dhan in laga daawado waan ku dhiirigelinayaa wal gacantaan qabtaa meesha geyn lahay laakiin ma arkin qof inaan loo kulmo ma jirto ana waxa ugu baaqi lahay inay talantooda ila jifanin talantooda soo kiciyaan meelaha ma arkin audition laga sameeyay meelaha kale ay tagaan soo ogaadaan wax kasta ay sameystaan aan u dhiirigelinay mideeda kale meeshan waxa maanta ka salaamayaan zaid u jeclahay Ajax hal mar maalin inaan la jilabo والله مصلحة وفرصة وكدم بزائد واسك فرصة تمر قاركود مركنا ما شقد مركن جوجنو دad kan kale oo asla shaqeynaa meelaha kale aadaan aniga waa iska daawada asaga maslaxa iska fiirsanaa waa iska qosla waan jecel waxaan dhaa marabko insha Allah Ajax la kulma doonta waxaan jecel inaan la kulmo oo la agta gareeyo oo asaga af Soomaali ku hadlaan Soomaali ku hadlaan af Soomaali ugu darowlo Cabdishakuur Farax Igale Universal TV magaalada Nairobi.